السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan ii sheego laba qiso cajiib ah oo ku saabsan dadka jaceylka jecel iyo guurka iyo waxaas. ninkii ugu horreeyey oo dhahay السيدات السادة haweenka ka hormariyay ragga musطalaxaas carabi ma lahayn waa alcarabiya. marka ninkii ugu horreeyey wuxuu ahaa haweenka ka hormariyay ragga wuxuu ahaa Aziz Abado. marka muxaadarooyinka sheekh kashkay ku jirta allah yarxamo. markuu dhimanayay ayuu wuxuu u sheegay khaadimadeeda inuu wejiga ugu sawiro dhunkasho. wuxuu yidhi daankeyga dhunkasho ku sawir yidhi haddaan dhinto maalintaan dhinto. marka mana guursanin. marka sheekh kashka wuxuu yidhi marka romantic jaceylkaas oo dhimashada imaaday romantic dhimashada yaa allah yaa ka fiican uu yidhi. ma dhihin shahaadada ali ha ii qabto, ma dhihin diin inaan ku dhintaan rabaa hal ii duuga, ma dhihin deynta haliga dhiiba, ma dhihin. marka wuxuu yidhi markaad dhinto dhunkasho ku sawir yidhi daankeyga. marka ninkaas Aziz Abado allah masar u ahaa. marka shaacirna waa ahaa jaceylka masiixeedkaas ku qori jiray. kan labaad waxaa waaye ninkii fiisikiska ugu caansanaa dunida Albert Einstein jarmalka maraykan marka u gudbay. marka ninkaas Nobel Prize ku qaatay wuxuu xaliyey waa taqaaneen xisaabtii ugu adagtay dunida النسبة lahaa. marka xisaabtii ugu adagtay dunida nidaamu nisbawiya dhan ninkii xaliyo waayo dunida rational waxa la dhaho dhan fiisikiisna ugu caansan tahay taqaanid. marka aabihii philosophy-ga iyo meterka iyo wax badan ugu xisaabtaa gravity-ga iyo ninkii xaliyo waa xisaabtaas father of gravity allah. marka ninkaas saas u weyn waxaa cajiib ah haweentiisa waa xalin waaya la yidhi. wuxuu keeni waayey cilmiga haweenka see loo xaliyaa adduunyada dhanna wuxuu xaliyey xisaabtii ugu adkeyd. marka laakiin cilmigii haweenka ayaa ka maqnaa. marka khilaafkiisaa batay adi furitaan ay gaartay marka dambe haweentiisa jaa'izada lacagta ee la rabay furitaanka ay dalbatayna oo ku xukumayna waxay noqotay jaa'izadii Nobel Prize. marka wuxuu la yaabay noqotay ninkii dunida dhan xaliyey oo xalin waayey wuxuu noqday haweenka waa bixin waaye. marka haweenka cilmi kale waaye wax walbo taa qofka weyn aad tahay. marka cilmigaas barashadiisa ma garin isaga ma marin. marka waa in salaama